مقال تعصير مركو يهي مس مقال مرغله مركو يهي لغا ما فايديستو ولا wax lama soo saaro taxayisiin wax ma la saarto lacagna laga maraadiyo waa ceeb wax laakiin mararka qaar waxa la leeyahay in isliis celiyo waad qaldan tahay hey jooji lis dhaho misasaan waa qaldaneed walaal oo sidan si ka bedel in lis dhaho taas waa wax jiro oo in la isku sheegan la istaalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن السلام ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا خلاص اسوق الله كلنتي وعنا وناكسن دمانتينا وعبد شكور هالكدنا قدامنا سنوا يوتيوب شانل كيga maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay arinta Malaysia youtuberada Soomaalida waxay ka soo dhaheen dhamaan horta Allah u naxariisto gabadhaas wiilka ka dhintay Allah u naxariisto tacsiib halkan oo tiiraanya looga direena Allah u naxariisto dhamaantiin wada dhimanayna samir iimaan Allah ka siiyo marka ka soo gudba taaseeto youtuberada Soomaaliyeed baa u imaan rabaa dhamaan waxa jirto youtuberada aad u fara badan oo soo ka soo bixiyeen reaction ma ka soo hadleen muuqaalkaaseeto gabadhaas iyo Asad Xaajiyo iyo waxa isku heesteen arintaas ma galgalay sababtoo xog zaid iyo xog aad u badan oo aad u fara badan kama hayo waayo aniga halkaas ma tagin waligeena say u dhaqmaan iyo reer Malaysia say yihiin iyo dadka isku dhagan yihiin say yihiin in la dhaqmo mihi marka taas ka soo gudbo horta aad baan ugu xumahay qof teamkaaga ahmsa oo like waxa isla duujiteen waxa si muuqaalo waa qalad kuni koojar ina la socotid xaaladiisa ina iska wareysiin waxa soo faa'iido kaliya lama fiiriyo muuqaali markii la duway waxa kaliya aad baan ugu xumahay waan ku dacayadeenaya oo ceeb baan ku ehtaasato insha Allah raal gelin waxayna ka soo bixiyaan sababtii waxa u sameeyeen ina ka soo bixiyaan baarajinaya oo like muuqaal ka soo sameeyaan oo ka soo hadlaan taas marka ka soo gudbo dad baa jiro youtuber ka soo hadla arintaas ee markay ka soo hadleen waxay sameeyeen kuwana horta marka asxaab la yahay waxa fiican xanuun farxad murugo oohin wax walba in la isla qabsado tacsi waliba tacsida waxa aad u weyn waay oo istaahil in isla qabsado la isla damqado oo la isla murugado qofka loo duceeyo la isla naduugo horta youtuberada Malaysia waxa laga sheegay in arin aad u xun sameeyeen oo meel kasta ku jirta gabadha naftirkeeda way sheegtay muuqaalna ka soo sameysay waxaan ka xumahay qofka asxaab markaatiin waxa waayay dan in la isku danaysto kaliya ahaan waxa fiican qofkina la damqatid murugtiisa garab taagnaatid markuu faraxsan yahay garab taagnaatid markuu murugaysan yahay like up and down bajito bil aadanku qofna marna uu faraxsan yahay marna uu murugaysan yahay marna caadi intaba saddexda mar ina garab taaganta ba fiican laakiin ma sameeynin unfortunately waxa laga xumaada inay tahay ma sameyn laga ma helin teeda kale tan waxa arkay youtuber aad u fara badan oo arintaas ka soo hadlay youtuber caan 1 million 2 million half million wax wataan dad badan reaction ka soo bixiyeen laakiin waxa laga xumaada oo maanta in laga hadlo waxa waaye tacsiib baa jirto arin baa taagan oo qof baa qof ka dhintay ina ka faa'iideystid views ku raadisid oo maxaa la dhahayay xayisiin aad soo saarto muuqaal aad ka hadlaysid qof laga dhintay mise tacsiib u taalo King CK naftirkiisa asi markuu muuqaalkiisa ka soo hadlay qofkii soo daawaday wuxuu dhahayaa reer Malaysia gabadhina uu imaadana soo booqdaan faa'iido ugu ma jirin waayo wiilka qolkiisa lama gali karin oo hospitaalka lagu booqan karin uu dhahay muuqaal inay dubtaan waxa seen rabeen oo views ay ka helaan lacag laakiin saas markay arkeen in loo gudbi karin mise loo gali karin qolkiisa ku jiray hospitaalka inay waxay go'aansadeen inaan soo booqan walaal adaa saas dhihisay oo dhihisay maxaa la dhahay faa'iido ka rabeen adna hadda muuqaalkan aad sameynaysid mise aad ka hadlaysid faa'iido ka raadinaysa xayisiin baa ku saarneed wax walbo arin tacsi murugo lehna baa ka hadlaysay marka qofna waad ka hadlaysaa oo wax baad ku tilmaamaysaa wuxuu sameynaa qalad waay adigana waxaad ku sugantay markaasna ku dhaqaaqaysid waa qalad aad baan ugu xumahay markii youtuberada Soomaaliyeedna waxa ugu baaqi lahaa markii arin tacsi laga hadlayo mise arin murugo leh YouTube yaa la soo saaran xayisiin ha laga daayo oo wax baad ka hadlaysaa murugale maanta qarax baa dhacayna ilaa 20 qof baa ku dhimatay 10 qof baa ku dhimatay 100 qof baa ku dhimatay xayisiin soo saarnaysa wax murugoonayo oo dadka u damqanayna waad iska dhigaysaa xayisiin iyo waxna waa ku raadinaysaa la wajilnimo ma fiicno dadka la damqo oo waxa haysta mise la dareen mise ka dhaxbax oo iska dhaafo muuqaali waxna ka soo sameeyeen aad baan ugu xumahay taaseeto youtuber sameeyeen baa jiraan dadna way damqadeen magacoodna waa sheekar hal iyo koon waa dhihi karaa King CK na ba u koob una horeeyo oo aniga hadda muuqaaladiisa soo daawaday xayisiin buu saartay
weliba xataa muuqaalka dhex bartamihiisa markay socoto xayisiin buu saartay ma oga haddii inuu ka bixiyo wax kaleeto laakiin waxa aad looga xumaaday taas waaye dadna way u damqanayaan oo arrinta dhabbekeed views raasi wax ma ka aheen oo arrin waxa fikradooda ku jira maskaxdooda ka dhex guuxaya soo gudbinayeen oo dadka la wadaagayeen dadna way ka faa'iideysanayaan arrinta training waaye arrin socoto waaye ka faa'iideysta camal muuqaalka xayisiin saarto lacag iyo wax ka qabta baa ku jirtay Drizzly wuu ka soo hadlay asina laakiin xayisiin wax muu saaran wax aad loogu maasha Allah lagu farxanay way tahay ani CK waana taageeraa Drizzly waa taageeraa oo youtuber Soomaaliya dhamaan waa taageeraa kurti youtuberada dhan oo wax fiican oo dadka anfacaya soo gudbiyo laakiin mararka qaar waxa la leeyahay in islees celiyo waad qaldan tahay hey George lis dhaho mise saan waa qaldaneed walaal oo sidan si ka bedel in lis dhaho taas waa wax jiro oo in la isku sheegan la istaalo marka aniga halkaan King CK baa la yaabnaa oo maanta hadaa la hadli karo mise muuqaal hadaa gaarsiin karo mise hadaa wax ku dhihi lahaa muuqaal tacsiid markuu yahay mise muuqaal murugale markuu yahay lagama faa'iideysto walaal wax lama soo saaro xayisiin wax ma la saarto lacagna lagama raadiyo waa ceeb wax waxyaabo qaar waxa jiro oo irsaaqada Ilaahay nagama geliyo waxyaabo qaar oo irsaaqada laga dhaxlo dadka oo kale inoo kusoo noqotid oo wax ka raadisid oo ay kusoo noqotid muuqaal ka sameeysid mise ayaga gaajina ku qabato dadka ay dhacdid mise dadkaaga dishid saa wax u heshid mise dadkaaga lacag lagu siiyo ruufiyaantid mise dad waxyaabo qaar baa jirto oo aan haboonin oo aan fiicnayn in la sameeyo marka aad baa lagu xun yahay murugo qof haysta tacsi u taaro inaad muuqaal ka soo hadlaysid aad ka raadisid maxaa la dhahay lacag waxa saato Drizzly horta ma sha Allah halkaan baa ka salaamaya saa hore ku sheegan labada baa taageera laakiin qofka libintiisa waa loo qiraa ragga libintiisa waa loo qiraa qofka markuu wax sameeyo waana laga saxaa waana walaalkan waa la cishtaa wax waa loo sheegan karaa walaal qalad waa saan waa dhigi kartaa walaal tan oo ku saxneed oo ma sha Allah arrin qatar baa sameeyso ku dhigi kartaa guul wacan oo ku soco waa la kala leeyahay arrinta saas waa la isku leeyahay marka markasta in la isdhaho teeda kale tan ummadda Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waa shamsi iyo waxyaabaasna oo arkaagay waa sax sababtoo hala sameey markasta han lagu socdo oo dad badan baa jiro oo maxaa la dhahay waxyaabo qaar ku dhaqaaqi doonin haddii arkaan ummadina isku xiran tahay ummadina istaageersan tahay ummadda qaladka wada diidantay markii la arko kale dadku way baqayaan oo dad badan baa jiro oo qalad iyo wax ku dhaqaaqi jiro waxay iska sameyn jireen oo baqayaan oo joojinayaan marka arrintaasna ma sha Allah arrin oo in laga hadlo mudan waaye oo in ku socdo dhaw mise lagu dhiirigeliyo oo dhiirigelin istaasho waaye maanta halaas baa ka dhilaa muuqaalkaneeto reer Malaysia waxay ku sugan yihiin iyo wali muuqaal may soo sameeyeen iyo jawaab may soo bixinin ayaga dhamaantooda waana kurti asad xaajiyo kalima ahan arimaheena ma ahan way badan yihiin 7 9 12 qof 15 qof ay gaarayaan youtuber caan ba halkaas joogan marka dhamaan waaye yaal isdin asad xaajiyo kali iyo waxaas waaye dhamaantiina oo Malaysia jooga baan liga hadlooya asad xaajiyo iyo arimaheena teamkaas kalima ahan dhamaan dadka caanka oo Malaysia jooga buu muuqaalka gabadhaas ku socday oo na soo booqan oo u damqanin marka maanta muuqaalkeen halaas buu ku saabsan yahay fadlan hadaan cusubta subscribe nasar hadaa hornool joogtana aad baa u mahadsantahay insha Allah waxa rajeenaya halaas soo gudbiyo misaalaha maskaxdii ka dhex guuxaysa misaalahan ka soo dhex arka muuqaalada dadka soo sameeyay waxaasto in insha Allah lila fahmo oo wax aqli gal oo macquul inay noqdaan aad baan salaamaya maanta halaas buu muuqaalkeen ku eegyahay intaan muuqaal kale ku kulmeen waxaan iga tagayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويلكي نعت شكر